kambaniga caanka Yusra Luza ee biya waxyaabaha cosmetics-ka la isku qurxiyo ayaa markii ugu horeysay xarun cusub ka furtay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya. xaflad casho sharaf ahayd oo xariga looga jiray furitaanka xarunta ama ballaanta cusub ee Yusra Luza ay ku yeelan doonto magaalada Nairobi ayaa waxa lagu qabtay hotelka weyn ee Nomad Palace Hotel. munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii iyo waliba ganacsatada reer Nairobi. goobta xafladdu ay ka dhacaysay ayaa waxa lagu xardhay astaanta Yusra Luza taas oo soo jeedatay dadweynihii ka soo qayb galay. sidoo kalena waxa munaasabada hees iyo madadaalo ka qaaday fanaaniinta reer Nairobi. ugu horeyn maamulaha kambanigan isla markaana ah milkiilaha Marwo Maryan Jibriil oo ka hadashay xafladaasi ayaa sharaxday waxyaabihii ku kalafay xilligan in xarun cusub ay ka furtaan magaalada Nairobi. khaasatan dadka ka soo qayb galay aan jeclahay inay yihiin gebigoodba ganacsatada dadka kala wada Nairobi gabdhaha businesska ka shaqeeya gabdhaha walaalahan customerka ah ilaan businesskii customerka labadaba way isku xiran yihiin ma kala maarmaan. waa ku mahadsantihiin sida sharafta la noogu imaateen martiqaadkan aan caawa idin fidinay aad nooga aqbasheen kambaniga Yusra Luza oo aan jeclaysanay inaan ka furno mataqaanaa Nairobi sababtoo ah baahi loo qabo Yusra Luza in laga furo wadankan maadaama dalabkiisa uu batay dadkii ay jeclaysteen kambanigan mataqaanaa caanka ah Yusra Luza in aanu ka furno wadankan mar walba anaga waxaan tixgelinaa oo aan qiimeynaa customerkeena waxa ayna weydiistaan sida ay wax u rabaan. sidaas darteed ayaa waxaan ugu kalifay inaan ka furno kambaniga caanka ku ah herbalka Yusra Luza. runtii anaga waxaan soo saarnaa kreemooyinka herbalka ah pure herbalka ah. kreemkan Yusra Luza 1995kii 1995 ayaan waxaanu ka bilownay wadanka Denmark ee caasimadiisa Copenhagen. marka waanu fidinay waxaanu ka furnay London waxaanu ka furnay Dubai oo ah maanta caasimadda mataqaana saldhigeena weyn waxaanu ka furnay Sweden iyo Belgium maantana waxaan bali ah inaanu ka furno Nairobi. qaar ka mid ah dadweynihii xafladda ka soo qayb galay ayaa iyaguna muujiyay dareenkooda ku aadan in Yusra Luza xarun cusub ay ka furato magaalada Nairobi. Yusra Luza aad aan ugu faraxsanahay markii ay soo baxday dhibaatooyin badan ay iska jirtay inta ay soo bixin waxaan isticmaali jiray kreemooyin kale laakiin markii helbarku noo yimid aad aan ugu faraxsanahay aad aan ugu hambaliyeen inaan walaasheen gabdhaha waa ku taakuleynaa inay marsadaan sida anigoo kale tinta way ii saartay way ii bixisay macal raggooda waxaan dhihi lahaa oo isticmaalaan si skiinkooda uu okay aad caan u ah aad u magac dheer aad u qaali ah marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay haddaan nahay ganacsatada Nairobi ama Kenya idil aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay waxaana leenahay welcome insha Allah kii lagu barakoobo noqon doona gabdhahana dhalinyarada cuslaata xitaa sida anoo kale waana isticmaalaan. gabagabadii xafladda Marwo Maryan Jibriil ayaa waxa ay guddoonsiisay dadweynihii munaasabadan ka soo qayb galay ee furitaanka ahayd hadiyado kala duwan oo ah wax soo saarka kambanigan Yusra Luza. furitaanka laantan cusub ee magaalada Nairobi ee Yusra Luza ee soo saarta waxyaabaha la isku qurxiyo ayaa waxa soo dhaweeyay bulshada reer Nairobi gaar ahaan dumarka. Maxamed Cusmaan Cumar Xabiib Royal 24 TV Nairobi.